السلام عليكم waxaan jeclaystay inaan wax yar baraarujiyo bulshada sidaan la socona adduunka waxa walwal ku abuuray caabuqa coronavirus marka koowaad tala saaro alle maxaa yeelay waman yatawakkal cala allahi fa huwa xasbuh qofkii alla tala saarto asaga ku filan laakiin ogow taxadarka waa muhiim ilaahay waxa uu ku yiri muuminiinta quduu xidrakum qaata digtoonidiina qof kasta waa muhiim inuu ka fikiraa naftiisa iyo bulshada uu la nool yahay fadlan badbaadi bulshada hana isdhiin hadaa tahay dhalinyaro inuusan waxba ka dhibeen waa sax waxba kaama dhibaayo badanaa dhalinyarada kuma dhintaan laakiin waxaa laga yaabaa inaad u gudbisid qof u nugul sida dadka waaweyn ee hore u qabay cudurrada koroniga ah ee muddada dheer dadka hayo iyo caruurta yaryar maxay tahay astaamaha uu leeyahay caabuqan waxa uu ku sababaa xanuun daran sanbabaha iyo caabuq taasoo keento neefta qofka ku adkaato iyo hergab qalalan hadaa isku aragtid calaamadahan fadlan markaa hindhisaysid isticmaal tiish ama maro sida ugu taxadari kartid caabuqan u dhaq ama u nadiifi gacmahaaga si fiican ka fogow inaa gacmahaaga ku taabatid indhahaada ama afkaaga sidoo kalena ka fogow meelaha dadka iskugu yimaadaan halaasa jeclaysamaad inaan idinla wadaago anigoo ah Cabdulxaliim Cali fadlan badbaadi bulshadaada muuqaalkana si shargareysa u gaaro dad badan maasanidne